qaranka u tura oo qaranweyne u tura oo noo tura haddaanu nahay reer Somaliland noo tura nabadda qaata xabadda haddeer hala joogo ciidamadii qaranka waata hadda dejintoodii lagu jiro og wasiiro iyo golihii kale iyo odayaalba shirgudoonka golaha guurtida isagoo ku hadlaya magaca golaha guurtida qaran wuxuu baaq nabadeed xabad joojin iyo baaq nabadeed u dirayaa beelaha shaqaaqadu dhex martay ee ceelku ku dagaalamay waxaanu beelaha ka codsanayn inay xabaddana joojiyaan nabaddana qaataan beelo maanta iyagu isu cooboweyn qarankan uma baahna intiisa kalaa ku filan dhibaatada guuda maanta dhacday ee qaranka soo gaadhay baa ku filan taasaynu la wada butuluqsanaynaa inaynu xal iyo safgarasho iyo wanaag iyo horumar dambe ku gaadho taasaa nagala qayb gelaysaan beelihiinaas uma baahnin docfaruu laba reeroo iyagu isu muuqday qaran ma daweyso qaranka u tura oo qaranweyne u tura oo noo tura haddaanu nahay reer Somaliland noo tura nabadda qaata xabadda haddeer hala joogo waayahay wixii hadhay waxa weeye inaanu isugu kii nimaadno dee waa isugu kii nimanaynaa waa nabadda waa ka qayb gelayn gardarrana loo dul qaadan maayo cidday doontaa ka timaado laakiin aan isla gaadhno maxaa gardarraa maanta dhacay qaata talada degdegna waa laydinku imanayaa waftigii guurtida ee heer qaran baa idiin imanaya hadduu u bato maaliyo laba buu idinka maqan yihi soo dhaweeye nabadna siiya talo nabad baanu idinka rabnaa nabad alla idinka waxaan kaloo jeclahay qoladiina guurtidu ciidamadii qaranka waata hadda dejintoodii lagu jiro og wasiiro iyo golihii kale iyo odayaalba way marayaan dawaynu kala qayb gelaynaa waftigeedaynu iyagana u diraynaa waa u qaybsami karaa labada hawlood goluhu wixii kale baaqanayaaba ha ku baaqdeen waxaynu ka fuur yeelaynaa labada arrimood maanta baynu ka fuur yeelaynaa ilaahayna haynagu gargaaro